Maanta waxaan ka hadlaynaa sida kombiyuutarka password loogu xirto, sida password hore kuugu xirnaa sida la isaga bedelo, iyo passwordka sida looga qaado gebi ahaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaad ku soo dhawaataan janalka Somskills. Maanta waxaan ka hadlaynaa sida kombiyuutarka password loogu xirto, sida password hore kuugu xirnaa sida la isaga bedelo, iyo passwordka sida looga qaado gebi ahaan. Operating system-ka aan isticmaalayno waa Windows 10. Marka hore waxaan ka hadlaynaa kombiyuutar oo aan password ku xirnayn sida loogu xiro passwordka. Si aad marka password ugu xirto kombiyuutarkaaga, marka hore waxaad tagaysaa qaybta settingska waxaad ku soo furan kartaa inaad keyboardka start iyo I inaad la qabato. Kadib waxaa kuu soo furmaya qaybta settingska, ama waxaad tagaysaa qaybta taskbar-ka. Kadibna waxaad klik ku siinaysaa calaamada windowga ama startiga loo yaqaano. Kadib waxaa kuu soo kacaya startiga. Kadib waxaad ka tagaysaa halka ay ku qoran tahay settings. Kadibna waxaa kuu soo furmaya qaybta settingska ee Windows 10 uu leeyahay. Settings markuu kuu soo furmo waxaad ka tagaysaa qaybta ay ku qoran tahay accounts ayaad klik ku siinaysaa. Accounts markaad klik ku siiso waxaa kuu soo furmaya qaybta kombiyuutarkaaga aad akoonada ku jiro aad ka maamulanayso. Sida caadiga wuxuu kuu joogaa qaybta your info. Laakiin markaad passwordka inaad wax ka bedesho aad rabto, ama inaad password cusub inaad saarato aad rabto, waxaad tagaysaa qaybta ay ku qoran tahay sign in options. Klik aad ku siinaysaa. Kadib waxaa kuu soo baxaya optiono dhowr ah oo aad kombiyuutarkaaga ugu xiran karto password. Marka optionka aan u baahannahay ayaa ah optionka la yiraahdo password. Optionkaas ayaad klik ku siinaysaa. Kadib waxaa kuu soo baxaya button yar oo ay ku qoran tahay add. Buttonkaasi ayaad klik ku siinaysaa. Markii aad klik ku siiso wuxuu kuu soo kicinayaa godad aad ku buuxinayso passwordka aad rabto. Godka ugu horeeya oo ah new password, waxaad gelinaysaa passwordka cusub aad rabto inaad kombiyuutarkaaga ku xirato. Passwordka cusub markaad geliso, godka labaad wuxuu ku leeyahay confirm password. Passwordkii hore aad u gelisay ayaad mar labaad ku celinaysaa. Godka saddexaad waa password hint. Godkan waxaad gelinaysaa shay aad ku xusuusanayso passwordka aad hadda gelisay. Shay aad ku xusuusanayso ayaad halkan ku qoraysaa. Kadibna waxaad leedahay next. Kadib next markaad tiraahdo wuxuu kuu soo bandhigayaa akoonkaaga hadduu local yahay iyo haddii uu akoon oo Microsoft hadduu kugu xiran yahay, labadaba kii kugu xiran ayaa halkan kaaga soo muuqanaya. Kadib waxaad leedahay finish markaad tiraahdo waxaad arkaysaa qaybta passwordka halkii ay hore uga qornayd add, hadda waxaa ku qoran change. Si aad marka u xaqiijiso passwordkii aad ku xiratay inuu shaqeynayo iyo in kale, waxaad taabanaysaa keyboardka keyga windowga ama keyga startiga loo yaqaano, iyo waxaad isla qabanaysaa keyga L. Kadib kombiyuutarkaaga qaybta log ayuu ku geenaya oo kombiyuutarkaaga log ayuu saaraya. Marka waxaad arkaysaa in uu password kuugu xirmay. Passwordka kuugu xirmayna waa passwordkii aad adiga ku xiratay. Sidoo kale waxaad ku xiran kartaa bin markaad ku xiranayso waxaad tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay Windows Hello bin. Marka binkani wuxuu ku tiirsan yahay password kombiyuutarkaaga inuu ku xiran yahay. Hadduusan password ku xirnayn, bin kuma xiran kartid. Haddii uu akoon kugu jiro oo akoon oo Microsoft oo kombiyuutarkaaga uu ku xiran yahay sida Hotmail ama Outlook, password ahaan waxaad u isticmaalaysaa akoonkaaga passwordkiisa. Sidaa darteed hadda waxaan ku soo xiranay password oo caadi ah. Haddii aan rabno inaan ku xirano bin, waxaan tagaynaa qaybtan ay ku qoran tahay Windows Hello bin. Klik markaad ku siiso wuxuu kuu soo saarayaa button oo ay ku qoran tahay add. Buttonkaas ayaad klik ku siinaysaa. Kadib waxaa kuu soo kacaya panel yar oo ku weydiinaya inaad geliso passwordkaaga. Passwordka aad gelinayso waa passwordkii aad hore u soo gashatay ayaad gelinaysaa. Kadib okay ayaad leedahay.
kadib wuxuu kuu soo saarayaa qaybta aad bin cusub ku gashan lahayd. bin iyo password marka lagu leeyahay waa ay kala duwan yihiin. binka wuxuu ku tiirsan yahay passwordka saan hore usoo sheegnay. sidaa darteeda markii aad bin rabto inaad samaysto wuxuu kusoo weydiinayaa passwordkii hore kombiyuutarkaaga uu kugu lahaa. kadib passwordkaas markaad geliso wuxuu kuu soo furayaa qaybtan oo setup bin ah. binka sida caadiga ah kaliya wuxuu aqbalayaa nambaro inaad geliso, tiro kaliya inaad geliso ayuu aqbalayaa. laakiin haddii oo aad rabto inaad xuruufo iyo calaamadaha kale inaad ku darto waxaad kali ku siinaysaa godkan yar ayaad sax saaraysaa. laakiin anaga kaliya hadda waxaan rabnaa inaan kaliya isticmaalno nambaro inaan gashano. nambarka aad binka ka dhiganayso ayaad gashanaysaa godka koowaad oo new bin ay ku qoran tahay. kadib godka labaad oo confirm bin ay ku qoran tahay, binkii aad hore u gelisay ayaad mar labaad ku celinaysaa. kadibna waxaad leedahay okay. kadib markii aad okay dhahdo waxaad arkaysaa in uu kombiyuutarkaaga bin kugu xirmay. haddii aan mar kale tijaabin oo aad qaybta log ah aad tagto kombiyuutarkaaga, oo log waxaad ka tagaysaa saan hore u sheegnay calaamada windowga ama startiga loo yaqaano ee uu keyboardkaaga leeyahay ayaad waxaad la qabanaysaa xarafka L. kadib qaybta wuxuu ku geynayaa log screenka. log screenka markuu ku geeyo waxaad arkaysaa password ahaan markaan wuxuu ku weydiinayaa bin. haddii in case oo aydan binkaaga xasuusan oo aad rabto inaad passwordkaaga ku gasho laana hore password ayaad ugu xiratay, asigoo password kugu xiran ayaad binkiina ku xiratay. sidaa darteeda marka waxaad haysataa laba khiyaar ama laba option ayaad haysataa oo aad ku gali karto. ima inaad ku gasho passwordkii aad hore ugu xiratay ama inaad ku gasho binkii aad gadaal kaga xiratay. sida caadi hadduu bin kugu xiran yahay wuxuu marka hore ku weydiinayaa binka. laakiin haddii aydan rabin inaad ku gasho binkii oo aad rabto inaad ku gasho passwordkii hore waxaad kali ku siinaysaa linkigan yar oo ay ku qoran tahay sign in options. kaligaad ku siinaysaa. markii aad kali ku siiso wuxuu kuu soo saarayaa laba option oo ah mid oo iconka oo passwordka wato iyo mid binka ah. sida caadi wuxuu ku aadisan yahay binka. haddii aad rabto marka passwordka inaad ku gasho waxaad kali ku siinaysaa kan iconka oo passwordka wato ayaad kali ku siinaysaa oo furaha ah. kadibna passwordkii hore ayaad ku gali kartaa. haddii aad rabto in aad iska bedesho password hore kugu xirnaa kaliya waxaad tagaysaa qaybta passwordka. kadibna hadduu password kugu xiran yahay wuxuu kuu soo bandhigayaa batoon ay ku qoran tahay janji. janjiga ayaad kali ku siinaysaa. kadib wuxuu ku weydiinayaa passwordka oo hadda kugu jira ayaad gelinaysaa godkan ay current password ku qoran tahay. passwordka markaad geliso waxaad leedahay oo aad kali ku siinaysaa next. markaad kali ku siiso wuxuu kuu soo saarayaa panel yar oo aad ku samaysanayso password cusub. oo godka koowaad waxaad gelinaysaa passwordka cusub. markii aad passwordka cusub geliso haddana waxaad gelinaysaa godka labaad oo confirm password ay ku qoran tahay. passwordkii ayaad mar labaad ku celinaysaa. sidoo kale password hintiga saan hore usoo sheegin waxaad gelinaysaa shay ku xusuusinaya passwordka aad hadda gelisay haddii in case aad ilowdo mar dambe. kadibna next ayaad leedahay. kadibna akoonkaaga ayuu kuu soo bandhigayaa. kadibna waxaad leedahay finish. markaad tiraahdo haddii aad tijaabiso aad qaybta log screenka haddii aad tagto waxaad arkaysaa in passwordkaaga kii hore oo kugu jira inuusan shaqaynaynin. passwordka cusub hadda aad gelisay ayaad ku gali kartaa. bin haddii aad gashatay oo aad rabto binkan inaad bedesho asna sidoo kale tilaabadii hadda oo kale ayaad raacaysaa. kaliya waxaad kali ku siinaysaa windows hello bin. kadib waxaad kali ku siinaysaa batoonka ay ku qoran tahay change. kadib wuxuu ku weydiinayaa binkii hore. qaybta bin ay ku qoran tahay waxaad gelinaysaa binkii hore oo aad u lahayd. qaybta new bin ay ku qoran tahay waxaad gelinaysaa binka cusub aad rabto inaad ku bedelato binkii hore. qaybta confirm bin waxaad gelinaysaa binka cusub ayaad mar labaad ku celinaysaa. kadibna okay ayaad leedahay. kadib binkii hore aad u lahayd inaad iska bedeshay ayaad arkaysaa. haddaad rabto in kombiyuutarkaaga passwordka inaad ka qaado oo password la-aan inaad ka dhigto aad rabto waxaad tagaysaa qaybta passwordka.
kadibna waxaad leedahay oo aad klik ku siinaysaa batoonka kuu soo baxay oo change ay ku qoran tahay aad klik ku siinaysaa. waxaad ku qoraysaa halkan passwordka hadda kugu jira, kadib waxaad leedahay next. godadkan uu kuu soo saaray markan waxaad ka tagaysaa ayagoo eber ah oo faaruq ayaad kaga tagaysaa, waxba kuma qoraysid. kadib next ayaad leedahay, kadibna finish ayaad leedahay. marka waxaad arkaysaa qaybta passwordka inuu markaan ku qoran yahay add, laana wax password ah ma saarno, password cusub inaad geliso lay noqonaysaa markaan. sidoo kale haddii aad rabto inaad binkan inaad ka qaado bin hadduu hore kugu saarnaa, waxaad arkaysaa inuu kuu soo saarayo batoon ay ku qoran tahay remove. batoonkaas ayaad klik ku siinaysaa, kadibna binkii iyo passwordkii computerka kuu saarnaa labadaba wuu ka qaadmayaa.